Ugu horreyn, ma jiraan adduunkan wax sugan ee isbeddel joogto ah ayaynu ku jirnaa. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbeddelladaas uuna qofka si joogto ah isu horumarin lahaa si uusan ugu harin tareenka nolosha. Waxaa kaloo jirta baahi joogto ah oo ah dhinaca xirfadda iyo macluumaadka intaba. Qof kastana wuxuu u baahan yahay si joogto ah inuu u baadigoobo. Suuqyada shaqada ma naxariistaan ee waxay u baahan yihiin xirfado cusub iyo macluumaad dheeri ah. Haddii aadan ahayn qof si joogto ah isku horumariya, tartanka shaqada waad ka haraysaa, wayna kugu adkaanaysaa inaad la qabsatid shaqada. Culeysyada nolosha soo wajaha way badan yihiin, sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad mar kasta baratid tabaha iyo sidii aad ula dhaqmi lahayd ama uga gudbi lahayd culeysyadaas. Tirarka ay ku taagan tahay is-horumarinta wax kasta sal iyo aasaas ayay leeyihiin. Haddaba halkan kala soco. Waxaan si kooban uga hadli doonaa 5 tiir ee is-horumarintu ku taagan tahay, waxayna kala yihiin sidan soo socota. Midda koowaad waa inaad istaqaano. Qofku waa inuu isweydiiyaa kumaa tahay, maxayse tahay awooddaada iyo xirfadda aad leedahay. Haddii uusan qofka su'aalahaas jawaab rasmi ah u helin, waxaa ku adkaan doontaa inuu is-horumariyo. Midda labaad waxay tahay waa inay ku caddahay waxa aad ka damacsan tahay noloshaada. Waxaa loola jeedaa qofku waa inuu leeyahay qoraal cad oo caddaynaya hadafka uu leeyahay, kuwa dhow iyo kuwa fogba. Hadafyada fogi waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo ka badan sanad, sida inuu qaato digrii jaamacadeed iyo wixii la mid ah. Hadafyada dhawi waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo sanad ama ka yar, waxayna u adeegaan sidii lagu gaari lahaa hadafyada fog sida barasho luuqadeed iyo wixii la mid ah. Taas oo macnaheedu yahay waa inuu qofka leeyahay meel uu ka duulayo, og yahayna meesha uu u socdo. Laakiin haddii uusan ogeyn meesha uu u socdo iyo meesha uu hadda joogo, waxaa cad inuu ku fashilmayo is-horumarintiisa. Midda saddexaadna waxay tahay waa inaad taqaanid sida aad ula dhaqmi lahayd naftaada iyo dadka kale intaba. Waa inaad taqaanid waxa aad ka rabtid ama aad ka damacsan tahay nafsadaada iyo tan dadka kaleba. Aadna ka dhaadhicin kartid waxa aad damacsan tahay, weydiin kartidna waxa aadan fahmin, adiga oo adeegsanaya qaabka iyo sida ugu wacan ee lagula xiriiro dadka kale. Midda afraadna waxay tahay waa inaad leedahay xirfad aad adiga kaga faa'iidaysan kartid hantidaada. Waxaa loola jeedaa inaad leedahay hanti aad uga maarmi kartid inaad dadka kale wax weydiisatid. Soomaalida ayaa tiraahda bugto badan iyo baryo badan waa la isku nacaa. Taasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad abuuratid ilo dhaqaaleed, maxaa yeelay haddii aadan haysan lacag aad isku hormarisid ama aad isku maalgelisid, is-horumarintu way adag tahay inay sidii la rabay noqoto. Midda shanaad waa inaad leedahay xirfado aad wax isku bari kartid. Tani waxay tilmaamaysaa awoodda aad u leedahay inaad si fudud ama dhaqso ah ku heli kartid kuna kubcin kartid macluumaadka iyo cilmigaada adigoo adeegsanaya marba xirfadda aad u baahan tahay ee kaa kaalmaynaysa waxaad u baahan tahay. Tusaale ahaan, maanta oo caalamkii uu noqday tuulo oo kale oo macluumaad kasta aad ku heli kartid muddo kooban, bal ka waran haddii aadan aqoonin sida loo adeegsado internetka. Sidaa daraaddeed waa inaad abuurtaa amaba kordhisaa xirfadaha kugu saacidaya kororsiga cilmiga. 5 tiir ee aan soo sheegay ayaa kuu ah
jiridka ay ku taagan tahay is-horumarinta la'aantoodna ay adag tahay inuu qofka is-horumariyo. haddii aad jeceshahay guul iyo hadaf horumar leh waa inaad fiidiyogan dhammaysataa oo aadna sabskribe tiraahdaa gambaleelkana aad rukumato si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada xiga. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskribe leh. haddii aad horay noola joogtayna sheerta iyo laygta iyo daawashadaada intaba waa inoo muhiim brother and sister.